محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي وماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد intaa kadib bahda warbaahinta iyo gudoomiyaha isxilqaanka dayactirta kutubta quraanka kariimka dhamaantood aad bay u mahadsan yihiin hawsha maanta ay u taagan yihiin ee ah in kutubta Ilaahay ay dayactiraan. Saa wada aragtaanba waxa meesha yaala kutubta Ilaahay ee googoonayd oo la dayactirayo, qaybna la jildiyeynayo, la hagaajinayo, qaybna la gubayo si dayac looga ilaaliyo.
waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayusabbit aqdaamakum dadkii ilaahay rumeeyeyow haddaa ilaahay u gargaartaan ilaahayna waa idii gargaaraya taa waxaa inooga daliila ilaahay gargaar uma baahna laakiin waxa weeye in tansuruu diin allaahi war haddaad diinta ilaahay u gargaartaan ilaahayna gargaar baa ka helaysaan subxaana wa tacaala marka waxa ugu awleysanee loo hiiliyo loo gargaaro oo lagu dadaala in la dayactiro qur-aankii ilaahay maadaama ilaahay ku uume sidaa kuu rakibay kitaabkiisii uu yahay in la dayactiraa dee nasru diin illaahi bay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaalana fadaa'isha uu qur-aanka siiyey waa wada dareeminaa maadaameynu nahay dad muslimiina intaa kadib saa wada aragtaanba waxaa dhallinyaradu isu xilqaantay inay kutubta ilaahay dayactiraan iyadoo guddoomiyihiina uu taagan yahay oo inooga warrami doono qaabkii ay usoo bilaabeen iyo say wax u socdaan iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha sheekh cabdisalam halkan maanta aanu joognaa waxa weeyaan mu'asasadii dayactirka kutubta qur-aanka kariimka ahayd ee magaalada burco waxaan ku sugannahay halkan oo ah markaasi meel magaalada ka baxsan oo loogu talagalay in kutubta googo'day markaasi xal loo waayey aan ahayn in la asturo ama la gubo loogu talagalay oo lagu aaso waxaad arkaysaan jawaanada ku camaysan ee waxweeyaan kartoomada ku jira aadka u faraha badan waa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala saa googo'ay cid kale may jarjarin inagu baa jarjarnay waxweeyaan xaafidaheena laga soo qaaday iyo guryaheena iyo masaajidada aan ku tukano aan ku cibaadaysano marka insha allahu tacaala dadka dhammaan dadweynaha reer burco waxaan ugu baaqaynaa in horta kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala la ilaaliyo qof walba uu xil iska saaro marka labaad waxaan usoo mu'asasada dayactirka kutubta qur-aanka kariimka waxaa la aasaasay 2018 bilowgiisii muddada 6 sano ay jirtay ama 5 sano ay markaasi jirtay markani waa markii 6aad ama 7aad saasoo kale markaasi kutubta loo aaso kutubta halkan taala aad bay fara badan tahay wali wax weeyaan kutubtii xafiiska taalay maanan soo wada qaadin wax weeyaan noomim suurtagelin maanta inaan markaasi wada gubno intan in laag ba markaasi xafiiska taala oo u baahan iyaduna markaasi in la soo qaado oo la gubo marka waxaan u mahadcelinayaa walaalaha muxsiniinta ee ku midaysan xarunta dayactirka kutubta qur-aanka kariimka ee magaalada burco markaasi isu xilqaamay sida hagar la'aanta kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala ugu shaqaynaya iyagoon cidna gacan ka helaynin dowlad iyo cid kale toona gacan ka helaynin marka waxaan ugu baaqaynaa dadka insha allahu tacaala inay nagala soo qayb qaataan oo isla kala garab taagaan mashruucaas khayriga ah aan wadno ee kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala lagu badbaadinayo waxweeyaan qofka xafiiska yimaada ee kutubta arka waxweeyaan googaan runtii markuu arko kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala sida loo galay sida loo jarjaray aad buu uga murugoonayaa kutubta meel ka duwan baan ka soo ururinay masaajidaan ka soo qaadnay madaaris baan ka soo ururinay waxweeyaan iyaga dad qaar xafiiska qaar qashinkaan ka soo saarnay waxweeyaan meelaha kudaafadaha ayaan ka soo saarnay marka kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala in sida loo galo waxweeyaan nagama mudnayn kalaamka ilaahay siduu markaas ilaahi subxaana wa tacaala khalqigiisa uga sarreeya iyo hadalkiisana uga sarreeya marka dadka waxaan ugu baaqaynaa macallimiinta imaamyada masaajidada iyo markaasi bulshada kala duwan insha allahu tacaala in kitaabka ilaahi la ilaaliyo oo markaasi aan la jarjarin waxweeyaan weliba meelahan ka soo qaadnay aad bay u kooban yihiin magaalada maana wada gaadhin marka insha allahu tacaala in badanna waxweeyaan warbaahinta waanu ka sheegnay waxweeyaan xaruntan inta ay jirtay may helin markaasi wax gacan qabada oo xagga dowladda ah ama xagga dadka muxsiniinta ah marka dadka muxsiniinta ee samafalayaasha iyo waxweeyaan dowladda waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda diinta iyo awqaafta intuu insha allahu tacaala in ay ka soo qayb qaataan dayactirka kutubta qur-aanka kariimka bishii rabadaan ee khayrka badnid baan ugu soo markaasi aadan marka in laga soo qayb qaato waxweeyaan kutubtaas dayacan laga soo qayb qaato insha allahu tacaala dhulkan aad arkaysaan aan ku gubayno maanta waxaa bixiyay dad muxsiniina ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo laakiin kuma filla waad arkaysaan waa intaa ooddu ay ku wareegsan tahay markii aan wax kala weynay ood baan ku wareejinay si godka aan caruuraha iyo dadka jilicsan iyo waxweeyaan xooluhu aan ugu daadan wuxuu u baahan yahay insha allahu tacaala in shabag lagu xidho oo waxweeyaan ama geed lagu wareejiyo si markaasi mar kasta oo waxweeyaan kutubta loo aasayo ama loo asturayo waxweeyaan lagu soo aaso waanu yaryahay runtii waxweeyaan aad buu dhulku kooban yahay in la helo dhul kale ayaan iyadana insha allahu tacaala ka codsanaynaa oo dowladda dadka muxsiniinta inay naga kaalmeeyaan dhul badan oo ballaaran oo kutubta lagu aaso oo god aad u weyn laga qodo oo waxweeyaan kutub badan lagu aaso iminka godku wuu qodan yahay waad aragtaan laakiin kutubtan intanun buu qaadaya oo waxweeyaan lagu aasi karayaa ama lagu gubi karayaa dee sida hal mar waxweeyaan kutub badan oo 20 kuna la soo qaado oo dayacan waxaa loo baahan yahay dhul ballaaran in la helo taasna insha allahu tacaala dadka muxsiniinta waan ka codsanaynaa waxaa kaloo ka codsanaynaa insha allahu tacaala in markaas iyadana lagu kaalmeeyo gaadiid
waayo gaadiid ma laha gaadiidkan ku soo qaadnay dhammaantood way noo wada kiraysan yihiin gaadiid mu'asasadu ay leedahay oo wax weeyaan kutubta lagu soo qaado oo magaalada lagaga soo ururiyo ayaan u baahnaa insha allahu tacaala وبعده باقة أنا أدري إنه بالشهادة سجودهم كده واجي كوا حكاه قيبتي لبعض أما وجهي لبعض كتب تندي عتركوده أو مدرس رمضان تكهر دي أنت رمضان تان قرشوية إلا سوقبه بالقرش كي كبيه لها يو فرصة مهم بعيدنا قلا قيب قاعدة كرتا كتب تأسيس إلا سوقبه هذا النقطة جديد هذا النقطة دولكي أو دولكي وأنت أصله ودولكي وبوحة دولكي نقلا قيب قاعدة ناس جديدكي يو حوجي كلا حفيز سديبه إن أي نقلا قيب قاعدته سيدا كلا كتبتي وين فربضتي مركي لو أعتقد سروا دافع كتبتي كوي الاسمية كوي كلا ضيعنابه isna waxa buuxsamay meelihii lagu kaydinayay sidoo kale guriga iyo meelo lagu kaydiyana cidii nagala qayb qaadan karta kutubtaasi oo meelo la dhigo oo cidii waqaf ahaan nagala qayb qaadan kartana iyana insha Allah nagala qayb qaadato dufcadda labaad ee imka harsan ee wajiga labaadna inta muddadaasi ay nagala soo qayb qaadato iyo gaadiidkiisa waxay kale muasasadu u baahan tahay in muasasada laga soo war doono oo bulshada ku noqon gobolka Togdheer qurba joog iyo qolqol joogba ay xafiiska soo booqdaan ay kuwa maqancid u soo diraan ay kuwa magaalada jooga ay yimaadaan waxyaabo far badan ay gacanta ka qaban karayaan oo xoogooda ay ku darsan karayaan baa jira sida maanta kutubtaas kale la gubayo kale inay yimaadaan ka qayb qaataan hadba wixii baahi markaas jira ay bulshadu ogaato si kutubtii wax looga qabto oo aynu kitaabkaasi nagu dayacmin taasna bulshadan baa ugu diraya talabadan si taakiidinaya waxa weeye baabuurta muasasadu ma laha baabuur lagu soo ururiyo kutubta ma laha mid lagu qaado lagu soo gubo in badanna waan codsano baaqa waa u jeedinay qurba joogta gobolka u dhalatay iyo dawladaba marka iyagana waxaan leenahay inta isxilqaantaan baabuurkaas lagu soo ururinayo kutubtii dayacan xaafadihii lagaga soo ururinayo masaajidadii goobihii kale ay ku dayacanay lagaga soo ururinayo lagu keenayo godkii lagu gubayo iyo meeshii lagu dayactirayay inaad iyagana naga qayb salli ala rasuul kareem sida gudoomiyuu sheegay waxa weeyaan kitaabada cid wax lagaga doonayo ma laha ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa wax lagaga qaadanaya dar ilaahay wax weeye ay u shaqeynayaan gudoomiyaha iyo wax weeyaan iyo walaalaha wax weeye ka shaqeynaya wax weeye dayactirka kitaabada dar ilaahay bay u shaqeynayaan ilaahay wax weeye ay wax ka doonayaan marka wax weeye loo baahan yahay insha Allah bidna kareem in wax weeye la kala qarag baro oo wax weeye la qabto oo wax weeyaan wixii lagu tari karo kitaabada wax weeye lagu taro haday gaadiid tahay haday wax weeyaan dhul tahay wax weeye loo balaariyo haday tahay wax weeye inta shabakay wax weeyaan u baahan in lagu xidho wax weeye lagaga xidho riyaha iyo wax weeye ciyaalka iyo waxa lagaga xidho wax weeye haday tahay intaba wax weeye insha Allah wax weeye qofkii wax uu la baxaa wax weeyaan ilaahay agtiisa ma u taala insha Allah annaguna wax weeye wixii karamkayga iyo wax weeye dadaalkayga insha Allah waanu gelinaa wax weeye waanu qabanayna oo diyaarna waanu nahay ilaahay baanu wax ka doonaa insha Allah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina alamin dawaas hambalyanaya qoladan ma garanaysa halka ka shaqeynaysa ay hawshan haysa hawl weyn bay hayaan oo isxilqaameen marka hawsha cid kasta oo ma garanaysa dhalinyarada hawshan ka shaqeynaysa isgudub taagta waxaan leenahay wuu furan tahay jazakallahu khayr baan leenahay waxaan leenahay halaala gacan qabto hawl weyn bay hayaan dhul fog oo magaalada ka baxsan bay alaabta la keenay oo la geeyay marka waxaan iyagana aad baan ugu hambalyeenaynaa inay hawsha isu xilqaamaan oo kutubta quraanka ururiyaan in cidii gacan ka geysanaysana waxaan leenahay insha Allah hal is gudub taago السلام على النبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أن مشايخ ذي بهذا ورباهين تبعات بنو السلام يا دساك ودركتان مشروع خيري بين وجهنا وحويا وجبتان ككتبتي ما ضيع ترك كتبتي محن كل هذا يا الله سبحانه وتعالى أي ضيعنيد أنا باقي وهل فرهنون باندرا يا أنت خلوا ذا تدار دمي ودركتنا هو شيء دلني ردني هيان وهول الحكومة دولة وقومي لهيد marka halkan waxaan doonayaa in baaq uga soo jeediyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo xaqiiqatan ay hawsheedii shaqadeedii ahayd inay dhalinyarada soo caawiyaan oo maxaan ku dhahdaayay wasaaradda payrollkeeda iyo miisaaniyaddeeda lagu daro maadaama shaqadii wasaaradda ay hayaan in wax lagu caawiyo oo haday dhaqaale tahay iyo hadii garab istaag kala tahay iyo hadii maxaan ku dhul la siinayo ay tahayba wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan ugu baaqayaa in dhalinyaradan la soo caawiyo in la garab istaago in maxaan ku dhahdaayay taageero loo muujiyo buxsiniinta iyagu way caawiyaan maxaan ku dhahdaayay